مخلوقات كيسا كمدا وحو كمد ياهي من خزائنه خزنده سكمد ياهي إلهي سبحانه وتعالى شيء والبوء مخلوقات ككمده ومن آياته إلهي آياته سكمد ياهي شيء والبوء مخلوقات كإلهي كمده قدرديسي عدمديسا شيء موجنها يوي marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala shay walba oo abuuray waxa ku jira qudrada ilaahay ku qarsoon makhluuqaadkuna uusan ka warahaynin wax ka soo saara ayaa jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala cirka wuxuu geliyay khayraad badan dhulka wuxuu geliyay khayraad badan geedka ilaahay wuxuu geliyay khayraad badan xoolaha wuxuu ilaahay geliyay khayraad badan laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhulka khayraadka ku jira dhar iyo dhuuniba leh markuu ilaahay doonayo inuu ka soo saaro ilaahay sabab buu u yeelay sabab la'aan buu qaadir ku yahay inuu ka soo saaro laakiin ilaahay sabab buu u yeelay sababku u yeelayna ilaahay wuxuu ka dhigay madarka iyo biyaha markuu dhulka oo abaaraysan markii uu roobka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku manaysto dhulka waxaa ka soo baxaya nabaad baa ka soo baxaya geedkii jiray ee salkiisu qoyanaa wixii ku qarsoonaa geedka ee caleen ahaa ee ubax ahaa ee midho ahaa ee magaranaysa xanjo ahaa ee xabag ahaa ee foox ahaa khayraadkii ku jiray oo dhan baa ka soo baxaya maxaa ka soo saaray geedka waxaasi sifaadkiisa ayay ka mid tahay waxaasoo dhan inay ku abuuran yihiin laakiin khayraadka maxaa ka soo saaray khayraadka biyo ayaa ka soo saaray dhulka nabaadka faraha badan ee kala wada nooca ee kala midabka ee kala dhadhanka ee kala magaranaysa haddii la kala itaalka maxaa ka soo saaray dhulka khayraadka maxaa ka soo saaray biyaha ayaa ka soo saaray hal ruux oo bani aadamka ka mid ah acmaasha ka soo baxda ayaa samaawaadka iyo ardooyinka iyo waxa camiraba hal camal oo ka soo baxa bani aadamka jasadkiisa ayaa ka khayr badan oo ka culays badan dhulkii waxaa wax ka soo saaray wuxuu noqday biyo ayuu noqday bani aadamkii ka qiimaha badnaana isaguna wax ka soo saara ayuu leeyahay waxa wax ka soo saarayaa waa maxay waa qaythul hidaaya kana dhulkana roob la yaqaano daruuruhu wadaan oo la yaqaano biyo aba wax ka soo saara kan kala bani aadamka dhulka ka qiimo badan ee ka khayraad badan cirka ka khayraad badan makhluuqaadka oo dhan ka khayraad badan wax isagana waxa ku qarsoon ee waxa dhulka ku qarsoon ka qiimo badan wax ka soo saara ayuu leeyahay waxaas waa maxay waa waxyiga waa diinta wey ilaahay subxaanahu wa ta'ala kolka uu doonayo inuu dhulka nooleeyo roobkaas ku sii deeniyo biyaha laakiin waxaa jira qayth la yiraahdo qaythul hidaaya roobka gargaarka iyo magaranaysa badbaadada roobku haddii uu helo dhul nicmaysan oo roob kale helay oo doog leh oo biyo leh roobka hela waxaa la yidhaha madar baa la yidhaah laakiin kolkii dad iyo dunyaba la baaboo wax dhintay iyo wax ku dhow marka la noqdo roobka daa waxaa la yidhaha qayth baa la yidhaahdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam koonkan kada oo abaartii bani aadamku ay ku dhacday 500 iyo ziyaado sano qaythul hidaaya roobka gargaarka bani aadamka wax ka soo saara uusan ku diin ayaa deedna rasuulka la soo diray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ummadoo abaarowday geedku kolkuu abaaroobo qodax wax mudda xanan wax hagta iyo magaranaysaa qori wax magaranaysaa dhibaato iyo keliya ayuu geedku noqdaa hadh ma leh oo caleen ma leh oo midho ma leh oo xanjo ma leh oo xabag ma leh
wax lagu intifaaca male geedku kolkii uu engego wax lagu intifaaca male dhib mooye dheef male bani aadamku hadduu isaguna roobkii sii waayo wuxuu noqonayaa geed engegay oo afka wax ku dhiba oo adinka wax ku dhiba oo uurka wax ku dhiba oo caqliga wax ku dhiba oo maalka wax ku dhiba oo mas'uuliyadda wax ku dhiba wuxuu noqonayaa qodax buu noqonayaa bani aadamku laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka oo wax walba ka manfaco badan kolkuu doonayo manfacada ku qarsoon ee ilaahay ku karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama min jamiici aljawaanib dhankii la arkaba bani aadamka waa ka qiimaysan yahay makhluuqaadka intiisa kale oo dhan markuu ilaahay doonayo roobkii wax ka soo saari lahaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u da'siiyaa roobkii wax ka soo saari lahaa ayuu ilaahay u daasiiyaa midhaha deeqda ka soo saari lahaa midhaha naxariista ka soo saari lahaa midhaha cadaaladda ka soo saari lahaa midhaha ma garanaysaa ka soo saari lahaa wax alla wixii khayraad bani aadamka ku jira dulqaadka iyo sabirka iyo xishoodka iyo xaqdhowrka aaminaadda iyo runta inta khayr bani aadamka ka soo baxda oo dhan wixii ka soo saari lahaa baa ilaahay ku manaystaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayraadkaas wuxuu ka soo daayey asxaabtii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin sayidinaa cumar radia allaahu canhu wa ardaah waynu garanaynaa maalintii ilaahay hidaayada uu siiyey wuxuu u socday nebi moxamed inuu soo dilo abaari markay ku dhacday wuxuu noqday qodax iyo cadowkii ugu cadowsanaa nebi moxamed buu doonayaa inuu soo dilo halkaasuu dhibaato qodaxdiisu halkaasay maraysaa dhibaatadiisu halkaasay maraysaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kaysulhidaaya qalbigiisa oo ardulhidaaya dhulka hidaayada ah yaa ilaahay kaysulhidaaya oo naseexadii iyo diintii iyo aayaadkii cadamada ilaahay iyo qudradiisa iyo naxariistiisa ka hadlaayey oo nebi moxamed daruurteeda uu yahay ayuu ku sii daayey deedna qalbigiisii ayaa midho soo saaray isla markiiba waxaas shajaratuliimaan ayaa qalbigiisa ka dhalatay isla majliskiibaa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiow sidee baan innaga oo xaq ku sugan guriga arqam binu abil arqam sidee baan ugu jiraynaa baatilkuna kacbada uu uga talinaya uga muuqanaya hadda waa inaan wax ka qabanno nabigu wuxuu yihi cumarow waynu yarnahay laakiin isagaa ballan qaaday wuxuu yihi waxaan ilaahay ballan ugu qaaday meel alla meeshaan hadal xun oo baatila ama ficil xuna aan ku sameeyey inaan ka toobad keeno oon ka muujiyo isla markiiba wuu dhaqaaqay sanaadiiddii qureysheed odayaashii qureysheed oo kacbada ag fadhiya oo durbo kolkii takbiirtii sayidinaa cumar takbiirtii hidaayadiisa markii la maqlay magaaladii markaad isla kacday oo warkii durbo la isgaadhsiiyey ayuu u tegey markaasaa wuxuu yidhi yaa la yidhi waad sabowday diintaadii waad faaruqday wanaagsanayd baa la yidhi ka waran ashahaadu ugu jawaabay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah waa lagu soo booday isna cutbe bin rabiica ayuu intu kor u qaadoo dhulka dhigtay ayuu beerka kaga fadhiistay war ninka iga daaya labada indhood buu faraha ka geliyey war ninka iga daaya war ninka iga daaya ha igu diline markaasaa laga kala cararay halkaasuu eegana maray goob kale haddana goob kale haddana goob kale haddana goob kale markaasaa isagoo maalintii xamse oo asadullaahi wa asadu rasuulihi libaaxii ilaah iyo rasuulka diinta libaaxeedii iyo haddii aan la yidhaahdo iyo magaran cumar oo geedaynhaya hortiiya dabada ka wada nabiga ka socda ayaa kacbadii yimid halkaasaa ilaahay ugu gargaaray diintii
سيدنا عمر محابة بدلي غيث الهداية هنونك الروب كيسيبا بدلي هنونك أياوذي ضرورة الروبك وضعي بني آدم كأبارتيسا هدي مهيقان ناي دعان أو روبا بدر دعان أو دعان ودعان اسمه بدليو دولكو بدلا ووحي الله تلقى دولك إنو بدلو لكن بني آدم كروبكو ما بدلو geedka qoyan roobku markuu helo geedka qoyan helo xididka uu qoyaa markaasay deedna manfacadii ka timaadaa geedka qoyan markii uu helana wuxuu ka sii dhigaa dunbuu ka dhigay wuu jajabiyaa markaasuu qodaxdiisa iyo qashinkiisu badiyaa ruux ahlul iimaana hadduu nicmo ilaahay siiyo نعمتها إلهي وكبرتها الضوء مدنا وكبر جارا دينتنا وحبوه كبرتها